waxaan rajaynaynaa sidii hadda ka hor baan u wada shaqayn jirnay maamulkii dowlad deegaanka Puntland in gudoomiyaha cusubna aan u wada shaqayn doono si dardargelin doono ayaanu isla qaadanay. بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta aan ku suganahay santarka Tuurdibi ee ka tirsan degmada Galaadi gobolka Doolo ayaa halkan waxaan kulan ku yeelanay gobolka Mudug dowlad deegaanka Puntland. halkan waxaan kaga wada hadalay qodobo muhiim ah oo ugu horeysa arrimaha nabadgelyada. gudoomiyaha gobolka Mudug Faysal oo cusub oo hadda xilkii la wareegay toddobaadkan ayaa waxaanu ma garanaysaa ka wada hadlaynay qodobo muhiim ah oo ku saabsan xadadka anagoo ka kooban gudoomiyaha gobolka Doolo iyo degmooyinka gobolka Doolo sidoo kale Mudug iyo degmooyinka hoos yimaada intii badnayd hay'adihii amniga labada gobol iyaguna goobjoog ayay ka ahaayeen. waxaan kaga wada hadalay qodobo muhiim ah oo ugu horeeyaan amniga aan culays ka saaraynay sidaan ka warhayno dowladda Puntland ma garanaysaa xiriir wanaagsan ayaan leenahay gaar ahaan xagga amniga xagga isu socodka xagga ganacsiga intaba. marka waxaan dardar gelinaynay kulamadii hadda ka hor aan qaban jirnay kwartarkii ama saddexdii biloodba. waxaan si qoto dheer uga wada hadalay ammaanka labada dhinac ee xadka inaan ilaalino gaar ahaan argagixisada ma garanaysaa ay soo weerartay dowlad deegaanka Soomaalida inaan iska kaashano hadda ka horba iyagu aad ula dagaalamayeen. waxaan isla qaadanay labada dowlad deegaan mid kasta inay mas'uul ka noqoto dhankeeda dhaqdhaqaaqa cadawgana ay mas'uul ka tahay. si fiican baan isla qaadanay. waxa kale oo isla qaadanay in dambiilayaasha dadka labada dhinac ka gala ama waxyaabaha tuugada oo kala noqoto ama dhaca oo kale iyagana in la iska kaashado oo la isu celiyo. sidaan hadda maanta ugu wareejinay baabuurkii gudoomiyaha gobolka uu lahaa oo tuuga soo dhacday dhowr habeen aan ku haynay degmada Galxamur oo aan ku wareejinay halkan maanta. hadda ka horna iyaguna saas oo kale dambiilayaal noogu soo wareejiyeen. labada dhanba marka inaan iska kaashano gaar ahaan xagga khamrida oo kale aan iyadana aad uga wada hadalay maandooriyahaas khamrida inaan aad ula dagaalano oo dalka iyo dadkaba dhibaato ku haya meelaha dhibaatadu ka abuurantana ah maxaa yeelay khamridu waa umul khabaa'ith baa la yiri dhibaato badan bay u geystaan dadka isticmaala maandooriyaha ee cabtooyga labada dhanba. waxa kale oo aad uga wada hadalay xiriirka inaan xoojino gaar ahaan xiriirka ciidamada labada dhinac heer tuulo ilaa heer degmo ilaa heer gobol in xogta 24 saac la kala qaato la xiriiro maamuladu inay xiriiraan si xiriirkaas u hagaagana wuxuu u baahan yahay garanayno waxa laga maarmaan ah si xogaha la isu wadaarsado in network la helo. networkiga labada dhinac inaan ka dadaalo gaar ahaan xagga iyaga oo anteenooyinka aad u halaysan yihiin inaan hagaajino oo ma garanaysaa markaas si xiriirkii joogto u noqdo iyadana had iyo jeer gaar ahaan xiriirka amniga hay'adaha amniga oo isku xidhnay. waxaan rajaynaynaa ma garanaysaa sida hadda ka horba dowladdan Puntland ee dariskanahay aan isu kaashanaynay gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Mudug in ma garanaysaa xiriirkanagii uu sii adkaan doono gaar ahaan xagga nabadgelyada marka horeba ka wada shaqaynaynay ayaa daldalooyinka aan isla tilmaanay iyo in loo fiijignaado wax kasta oo dhici kara gaar ahaan cadawga maadaama uu doonayo inuu ka faa'iideysto daldalooyinka si fiican baan isla qaadanay. waxaan rajaynaynaa sidii hadda ka hor baan u wada shaqayn jirnay maamulkii dowlad deegaanka Puntland in gudoomiyaha cusubna aan u wada shaqayn doono si dardargelin doono ayaanu isla qaadanay dhammaan hay'adaha amniga wixii update ahana waan kala qaadanay meelaha ay wax ka suuroobi karaan gaababka waan kala qaadanay gaar ahaan xagga dariska dawladda annahay Galmudug laftirka meelaha ay gaabku ka jiri karo waan kala qaadanay. waxaan rajaynaynaa marka halka inay ka soo bixi doonto mas'uuliyad weyn oo si fiican u hirgasha. run ahaantiina dhanka Puntland waxaan uga mahad celinaynaa dadaalka dheer ayagu had iyo jeer ay kula jireen iyo dagaalada ay kula jireen argagixisada waa laga warhayaa inay hadda ka horba iyagu dagaalka ku jireen anaguna aan ku jiray marka hadda inaan iska sii kaashano oo marka la sii xoojiyana waan isla qaadanay. aad iyo aad u mahadsantihiin.